waa idin salaam dhammaantiin meel kasta iga daawanaysaan kusoo dhawaada Salmanis Academic koorsadeena maanta ama galaaskeena maanta waxaan ku bari doonaa wax la physics-ka hore idinkaga ballan qaaday inaan idiin soo gudbin doono afarta scientifics lagu magacaabo physics, math, iyo chemistry iyo biology-ga so waxaan soo qaadanay cashirka horeeyay math aan soo qaadanay oo basic oo just arithmetic aan soo baranay sidii nambarada la iskugu daro numberka soo yahay numberka markaa ku daraysay ama tiro number hadaa haysatay positionada aad joogtay place value waxyaabo lagu magacaabo soo baranay soo fiirs cashirka haddaan soo fiirsanay waxaa ka codsanay inaan soo fiirsato maantana waxaa idin bari doona physics koorsadan waa physics cashirka u horeeyay introduction aan idin sameynaya maxaa yahay physicska sidee lagu soo helay nimanka soo heleen muxuu qabtaa adduunka physics markii kooda hore math jiri kooda hore math dadka yaqaan haddana waxaa soo baxay physics haddana chemistry haddana biology laakiin qaabka iskugu xigaan wali investigation research kuma sameynin laakiin waa ku sameyn kartaa hadaa rabti laakiin waxaa la hubaa inuu math bis la yaqaanay kadibna haddana waxaa lasoo baxay physicsna wuxuu kusoo baxay iyo waxyaabahaas doonaa marka ay la socda sababta waxaa joognaa sabuuradeena oo wax idin kugu sharxo meeshana wax idin kugu sharxi doona waa sabuuradeeda qaaska oo ma kasta waxaa raba inaa wax idin sharaxo ama cashir inaa idin dhigo ama wax kasta oo su'aalaha inaa idin kaga jawaabo hadaa haystiin ama oo questiono anaa soo saaray inaa idin kaga shaqeeyo sabuuradan aan kaga shaqeyn doona haddii la yiraahdo so cashiradeena saan u socon doonaa so questionka adaa haysana waxaa waa what is a physics waa maxay physics sidiisbo muxuu yahay so inta waxaa noo yaala picture arkiisina u malayaa oo horteeda yaalan so kasoo qabo picture-kan koowaad camal muxuu yahay waxaa waaye galaxy lagu magacaabo sida hada science si fiican u taqaanid oo cirka markaa hawada saro ama meelaha mugdiga markaa joogto habeenkii oo nalalka ka shidnayn badanaa waa la arkaa xidiga aad u fara badan arkaysaa oo qurux badan meelaha qaarkood haystay telescope ama hadaa haysatay telescope-ka lagu fiiriyaa si xidigan waxyaabaha camal arki kartaa oo color-ka so waxyaabaha ay sameynayaan waa iska daba wareega sameynayaan sidii solar system-ka lahaa waxaa lagu bartaa geology inaa baratay ama physics badan oo soo galaya laakiin waxyaaba iska dawareeyan physics wuxuu ka qaadanaya kaliya speedka iyo waxyaaba la tuuraad qaadana physics af Soomaaliya hadda aan kugu sharaxo waa dhagax la tuuraayo cirka aadayo intuu ku soconayo speedka ku soconayo timeka ku soconayo waxyaabaas la fiiriyaa waxyaaba markii la dhisayo camal waa loo fiiriyaa mathka hadda bridge-kan arkaysin hortiina ka muuqda camal labadaba waa lagu dhisay math iyo physics labadaba waa lagu dhisayaa so wuxuu u baahan yahay numbers u baahan yahay waa baran doonaa wax la lahaay trigonometry marka imaado angles u jeednaa waxyaabaas dhan waa soo baran doonaa haddii la yiraahdo physics wuu ku jiraa so marka koowaad qalinkeeda soo qabsado so marka koowaad waxaa haysanaa haddaan inta imaado waxaa haysanay wax la dhahay math igaada qalinkeeda so waxaa haysanaa math so first math la haystay numbers oo isku dardari karaa waa la kala jari karaa wax kasta marka bini aadamku waxay ku fikireen wax kasta motion wax kasta dhaqdhaqaaqay maxay u dhaqaaqaan sidee dhagaxa kar loo tuuraa cirku dhulka ku soo laabanaa faras ama ada orday ama speed leedahay waa ordaysaa waa soconaysaa waagi hore xayawaanada badanaa speed badanaa lahayn bini aadamka sidoo kalena waxyaabo kasta orday waxa la arki jiray horiska ama faraska ordkiisa maxaa lahaay wax kasto macnaha oo socdo wax kasto dhaqaaqayo waxaa marka loo fikri in la helo sidee u dhaqaaqayaan sidee u shaqeeyaan ilaa math buyuur waa mahayno math kuma tusinayo wax dhaqaaqayo wax ordayo kuma soo saari karo hadda si kasta problem kasta ay sameysay oo number isku dirtay ma helaysi waxyaabaha dhaqaaqayaan kaliya marka dambe waxaa la ogaaday in wax la dhahayo physics inuu jiro so ninka helay inuu aan idin soo sheegi doonaa in la dhahayo physics oo soo baxay so waxaa la helay markaas kadib waxaa la helay wax kasta oo dhaqaaqaya inay yihiin waa physics so la noqda sabuurdeeda dhaqaaqooso so waxaa la helay physics ayaa la soo saaray so markaas waxaa la helay physics kadibna haddana waxaa physics macnaha wax kastoo la dhisaayo wax kastoo ordaayo wax kastoo macnaha la tuuraayo wax kastoo speed ku socdo oo wax kastoo macnaha cirka inay aadan soo laabanayo maxaa sabab si had ocean-ka camal saa'ida speed u leedahay waxay leedahay power leedahay wax kasta oo power leh ama awood leh
waxaa lagu magacaabaa waa physics waa physics kadibna waxaa soo baxay haddana aan la helay oo soo baxay chemistry wax la lahaayo so waxaan qori doonaa chemistry so waxaa kale soo baxay haddana chemistry muxuu yahay chemistry waa casharada ku xun qaadan doonaa chemistrygu waxa waaye haddii u imaano labadan dhinac ku wada jiraan biyaha camal chemical ku jirto wax kasta airka aad qaadanaysa waa chemical oxygen waaye waa baran doonaa haddana ninkan oo kale sawirka inta dhinacan kaga muuqdo waxa waa habo qaadanaya nin habo qaadanaya waa oxygen kadibna sanbabaha waa aragtaa gudaha ku galaysa wax kasta neefta aad qaadanaysa oxygen waaye waxaa sii deynaysina waa carbon ma fahanti so carbon and oxygen maxay labadaba waa chemistry ka imaaday bini'aadamka boqolkiiba wuxuu ku wada jiraa bini'aadamka jismigiisa ka wada buux waa chemical maskaxdaada ku shaqeyso waa chemical waa ma fahanti bini'aadamka waxa cunaysa adduunka waxa cunaysa cuntooyinka badan aa cunaysa chemical lagu daraa soo jismigaaga macnaha u tabco waxaa la ogaaday in chemicaldan dhulka laga helayo chemicalsdeed waa dhulkeena taalamahaynoo dhagxaanta iyo waxyaaba badan ay kasoo baxdaa qaarna waa geedaha ka imaadaa ma fahanti sida mooska camal hadda mooska camal waxaa ku jirto chemical ku jirto maahayn wax kasta cunaysa chemical ku jirto waa laga helay so waxaa la ogaaday inay bini'aadamka u baahan yihiin chemical u baahan chemical mid lagu dhimanayo iyo mid la cunaa jirto so chemistry waa qaadan doonaa casharadaas kadibna waxaa kadibna soo baxay kadibna waxaa soo baxay ama bini'aadamka ay ogaadeen waxa la dhahay biology so biology-ga inuu waa qayb ka mid ah bini'aadamka dhan waa bini'aadamka dhismihiisa qaab oo naqshad ahaantiisa oo dhan waa biology waa wax kasta oo jismiga ku jiro oo lagu bartaa haddaad rabto inaad doctor baxaas nurse inaad noqotay waxaa baranaysaa biology waa chemistry ma baranaysa maahayno chemistry ma baranaysa physics ma baranaysa laakiin maadka meel kasta oo soo galaa arag saddexdan haddaad rabto inaad wax kasta aad barato waa inaad maadka taqaana waa maadka waa basic waa pure waaye nambaro leh waa maadka wax kale kuma jiro laakiin physics ma ka imaado numbers kelimi ku imaana waxyaaba badan isku imaanayaan chemistry hadaa imaado waxyaaba badan isku imaanayaan biology ma ka imaado sidoo kale iyagana ma fahanti so maanta waxaan ku baran doonaa physicskana waxyaabahana badanaa lagu bartaa physics hadaa si fiican u taqaanid u baratid waxaa baran doonaa physicska waxa la dhahay force waxay leedahay vector waa baran doonaa waa just kor aan ka saaray vector so wuxuu ku sheegaysa tan hadda waa speedka waaye so force waxaa laga wadaa f waa force waa awood waaye awood haddii awoodda maxay ku imaada awood sideedaba waa culays iyo speed waaye qofka inuu culays yahay warqadda hadda oo dabeel haddaa imaado warqad aa sii deysa awood ma leedahay warqad culays ma leedahay warqadda waa maya waa iska bibiyo hawadaas iska bibiyo wax oo speedna ma leh wax hawadaas iska wadwadato laakiin middan dhagaxa qabatay waa tuurtay dhagaxii laba wuxuu wataa culayskiisa iyo tuurista aa tuurtay waa speed ku socdaa ma hayno dhagaxaas maadana wuu kugu dhici karaa adi dhaawac kugu geysan karaa laakiin warqadda kusoo dhaawac may kugu geysanaya waa maya waxba male force markaan force daa maqashay awood waxay ku imaadaa waa culays iyo speed ee ku imaadaa wax kasta culays badaa aragtay force aa laga wadaa kadibna waxaa arki doonaa displacement waxa la dhahaa iyadana aa baran doonaa casharada ku xiro waxa la dhahaa displacement aan baran doonaa iyagana waxay ka imaadaa velocity times t waa isigina waa speed and time waa idana haddaa waxaan baranay culays iyo speed haddana kana speed and time matalan dhagaxa tuurtay waxaa rabtaa inaa ogaatay inta minute ama inta daqiiqo ama inta second oo ku tagaayo meesha aad rabtay destinationka booska aad rabtay inuu ku tago aad rabtaa inaa ogaatay so taasna waa displacement aa lahaa meesha oo ka bilowday aad taagan tahay waa zero time waaye markaa tuurays waa zero time waa baran doonaa dhagaxii waa tuurtay time qabsatay dharararac bartii ku tagay so marka waxa haystaa speedki iyo time-ka isku haystaa marka laba hadii la isku daro waxa helaysaa kii lahay displacement wax la helaysaa waana baran doonaa kadibna waxaan kale baran doonaa iyadana iyo acceleration waxa la hayaa baran doonaa iyadana sidoo kale waxa waaye v over t ay iyada noqonaysaa haddii la rabo inaa eedaas la soo helo
oo acceleration hore soo qaadan maahayna waa soo aragnay acceleration waa kana waa soo aragnay hadda mar labaad inuu soo laabatay idin sidoo kale waa speed kale waaye haddaad rabto inaa speed oo acceleration qaabkiisa haddaad rabto inaad soo ogaatay waxaa waa inaa speed over time inaad ogaato idin si fiican u baran doonaa haddii la yiraahdo casharada ku xigo sharaxaad badan ayaa idinka siin doonaa haddii la yiraahdo so physics uu sheego waa intaa waxyaabo badan formula lahaay waxaan waa formula wax ku wareerina waa idin barin doonaa formula gooni aad intusin doonaa waana soo print garaysanaysaa meelaha idinku suurida waa soo print garaysanaysaa waan isticmaalaysiin muhiim waa inaad isticmaashiin so markaan physicska waa wax la tuuraayo wax awood ku socda sidiisba oo speed iyo culays iyo waxa la time oo ku imaada sidiisba waa lagu helaa physicska markaan hadda hoos aan gudubno waxaan ku haysanaa saddexdan nin haysanaa Max Planck and Isaac Newton and Alberta kala saddexdan waa Max Isaac or Isxaaq si af English loogu yaqaan af Carabi Isxaaq iyo Alberta saddexdan nin midba physicska ku saabsan yihiin waa nimanka soo heleen waxyaabo la midna hadda ninkaan la dhahay Max kan amal wuxuu soo helay waxa la dhahay mechanical oo soo helay mechanical oo lagu dhahay physics qayb kamid oo ka soo helay iyo scale waa soo baran doonaa ninkaan soo helay Isaac Newton's law waa baran doonaa iyadana waa qayb kamid oo si fiican u arki doontiin oo qaadan doona waaye Albert Einstein lahayna wuxuu soo helay speedka hadda aan ka hadlaynay speed of light wax kasto speed ku socdo asaaf soo fikri maskaxdiisa ka shaqeey malaha wuxuu tuuraa amalaya dhagaxaan badan oo tuuray faraskuu fiiriya amalaya oo soconaa speedka qoraxda camal iyo bish iyo waxyaabahaas dhan oo ku fiiriyo kulay telescope wax kasto speed ku soconaya waagaas ileen jirin amalaya diyaaradaha iyo maanta isticmaalayna baabuurta ma jirin amalaya xeebaanada badan ordi jireen oo speed lahaayeen oo sidii mukulash ama dooli wax kasto shimbiraha doolayaan waxyaabahaas oo kale kulay ka keenay oo speed ka keenay amalaya so ninkan kale Newton's law asigana waa formula dhan oo Newton's law oo la baran doono waay oo kamid ah physics kan ku baran doona hadda la yiraahdo hadda ka heshii physics aad u jeceshaa inaad baratay rabtay physicska si fiican ku explain gareyn doona hadda la yiraahdo badana eray waxa jiraan af Soomaali si fiican ugu fahamsaneen si had acceleration amal waa kulli Soomaaliga hadii la wax speed la noqonaysa velocity ama acceleration labadoodaba marka physics kan loo fiiriyo laba u kala yihiin laakiin af Soomaaliga markii loo fiiriyo badana inuu waxaan maleynaa labada speed ay noqonayaan wax ordaya wax speed ku socdo ay noqon doonaan labadii baa lagu kala macneeyay laakiin isku same thing la waa velocity ama acceleration gaari acceleration speed waa ma hino saas ku maanaysa so eray badan waa noocyadaas ka inay imaadana laga yaabaa laakiin baa ku fahamsiin doona hadda la yiraahdo waa physics waa adeeg yahay masalano waxa u baahan tahay inaad si fiican u fahamto casharada ku sharxay hadhow su'aal inaa ku weydiiya laga yaabaa haddana fahamsaneenin way kugu adkaanaysaa markaan waa casharkan maanta intaas ku akeysinayna waan ku mahadsantahay daawashadaada hadda ka heshay physicska aad jeceshahay barashadiisa waa casharkan hordhaci koowaad waaye waana baran doona kuwa soo socdana dawlad cashar ka badan soo socdaan sida hore idinku balan qaaday waa inoo socon doona cashareen aan is aragno casharkan cashar ku horeeyo waana ku mahadsantahay daawashada